بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. maanta waxaan geli doonaa insha Allah ta'ala aqeedada nimanka khawaarijta ah ee wahaabiyada ah ee aaminsan yihiin ee aqeedatul yahuud ah baan insha Allah ta'ala galeynaa oo kutubtooda ku qoran صحيفة كتابك أنت وشيء دونا بإذن الله الكريم. كتابك اللي هذا كتاب إبطال تأويلات في إخبار الصفات للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكتابك صحيفة دا بقول صدن يلحاد إلا صحيفة دا بقول صدن يتضواد وحقوقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل شابا أمرد جعدا قضدا في حلة حمراء. wuxuu arkay buu leeyahay ilaahay buu arkay wiil yar asagoo ah oo garmaleyti ah oo gar lahayn oo kakan oo madaxiisu aad moodo madax jareer oo macnaha madaxiisu tintiisu ay isku dhadhagan tahay macnaha wuxuuna qabaa lagu lahaa isku joog gaduudan ayuu qabaa dhar isku joog labis gaduudan oo isku joog oo qabaa. وفيه أيضا وحاكوسوغان سلاح حديثك أو حاكوسوغان هالكاس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ربكيس إنو أركا في منامك إنو كأركا في صورة شاب موفر رجلاه في خضرة عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. وحأولي هاي النبي أيو أركي منام أيو كو أركي صورة نين دالين يراءه أو دالين يرنديسو أي يعني تام تهي لبديس اللقودنا ميل عقاره دوغو ساس وقل جرابو ليه لبكبود أو ذهب أهنا واقبا لبكبود أو ذهب كسميسان نوو قبا لغلها hortiisana waxa yaala firaash yaala oo dahab ka samaysan yani joodari oo dahab hor yaala. وفيه أيضا وحاكسوغن أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في خضرة من الفردوس إلى أنصاف ساقيه في رجليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب. حديث كان وحكو شيغا يا وحا دن وا اكاذيب ووحي يهود اي سو واردي oo nimanka khawaarijta wahabiyada ay maarata golankooda wataan waxaana wada aaminsan yihiin diin u aaminsan yihiin ka kalena waxa ku sugan macnaha inuu arkay ilaahay inuu ku arkay manaam oo ku arkay meel doogo cagaar ah beer firdowso macnaha meel kamid ah cagaar ah beerah ayuu yani marka labadiisa lugood macnaha ilaa yani meesha saaqaynka ah shanshada ilaa meeshaasna wuxuu kula jiray meesha cagaarka ah labadiisa lugoodna wuxuu ku watay oo ugu jiray laba kabood oo dahab ah hortiisana waxa yaalay furaash dahab ka samaysan. waxaan fiir waxaan madiin ba waxaan dadka diin uga dhigayaan أي وضوطان. وعير هذا قال الحافظ أبو بكر ابن عربي في العواسم والقواسم جزء كلابات صحيفة دا لا بقول سيديتن يسدح وحو كله هاي وحو إيور رمي بير هذا ميد أنكو كالصون هاي أو مشايخ ذي ذا أن قاضي أبي يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى مركو إلهي الشيء هيو يقول مدير هذا فيما ورد وحي سوء أو من هذه الظواهر في صفاته عز وجل إلهي الصفات كيس الظاهر كأكسو أروري بوحو ديجري إلهي وحا لازمسان ما شئتم وحا دونتان إلهي كشيغا أو قفك بن آدم كحبنها أوليه هاي أردن كشيغا وجي أشيغا قعما أشيغا إندا أشيغا luga u sheega daba u sheega macnaha wax kasta uu leeyahay ilaahay ku sheega illa lixyata wal awra gar
iyo cawro macnaha yani meesha laga cawrada waxa weeye de waa meesha horo ama raggu ay leeyihiin macnaha waxaan ka ahayn laakiin dabadii lagu fariisanayay ilaan wuu fariisanayaa bay dhihii saan u soo soconno saan soo gaari doonno wuu fariisanayaa meel buu ku fadhiyaa bay dheheen dee barya lagu fariisto unbuu macnaha waa ku jirtaa meeshaan macnaha wax kasta ku sheega ilaahay laakiin gar iyo yacni ka fogaada cawro intaasaa ku sheegin fiiri ilaahay waxay ku shabahayaan kitaabka la yidhaahda kitaab alcarshi oo limaxamed bin cuthmaan ibn abi shayba asagana waxaa ku qoran kitaabkan saxiifadda 392 ilaa 393 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في روضة خضراء روضة من الفردوس دونه فراش من ذهب على سرير من ذهب يحمله 4 من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة أسد وملك في صورة النصر وحير هذي كتاب العرش وحيكوير هذين nebiga wuxuu arkay ilaahay buu arkay meel beeraha cagaaran oo beerihii firdowsa ka mid ah meel sukadiisa waxa yaalay firaash oo dahab ka samaysan sariir buu saarnaa oo ayadana dahab ah waxa kor u hayay asagoo sariirtii saaran waxaana kor waxa u hayay 4 malag oo u eg muuqaal ahaan nin buu u eg yahay ibn aadan oo kale ah ملك كلنا وحوليه هاي سورة دبيجة أو كلا ملك كلنا وحوليه هاي سورة لباح أو كلا ملك كلنا وحوليه سورة بالكان قلير كاه كلا وليه هو معناه الله يسكت مات صحيفة مرك الله بقول سديت يلي حيانا وحكو قرن أخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش صحيفدان maxaa ku qoran wuxuu noo waramay buu leeyahay waa inkaar Allah ku riday beentood ilaahay inuu dhulka ka tagay samadu tagay hadana samadu ka tagay arshigu tagay markaas arshiga ku nagaaday meeshaas fariisto buu leeyahay waxaan oo akaadiib ah oo balaaye ah ayaa horta kutubtooda ku qoran leysma gaarin qaybta koowaad baan ka dhigaynaa insha Allah taala si aan loo badbadin waa wadaynaa ilaa dhowr qayb baan ka dhigi doonaa yacni caqaa'idda faasidada ah ee yuhuudda ay nimankan soo rarteen oo nimankii yuhuudda ahaa oo markay soo islaameen kadib haddii alla kuurayaan waxay dasiisaha diinta soo geliyeen way marka waxaanoo dhanna waxa weeye ilaahayna qur-aankiisa wuxuu kugu sheegayaa laysa ka midlihi shay ilaahay wax la mida ma jiraan markaase ilaahay waxaa lagu tilmaamayaa wiil yar oo dhar cagaaran qaba oo kaba dahab qaba oo sariir saaran oo 4 malag hayso oo iska socda oo sama dhul ka tagay oo safar u aaday samada oo samadii ka tagay oo yacni hadii la kuuray carshiga tagay qof bini aadan ha masaafada inta mare ma allahi khaaliqa aha oo raasiqa aha oo qadiirka aha oo wax walba awooday ba safar inta u galahay annaga rafaadno safar inta ka bax meel heblaaya ka tag meel heblaaya aad khaaliqi fiiri waxay ku tilmaameen safar inta samada dhul ka tagay samadu aad samadii buu ka tagay carshigii aad inna lillahi wa inna ilayhi waxaana diin u ah khawaarij wahabiyada waxaana dadka marka ay la hor fadhiyaan ay rabaan diin inay ka dhigtaan waxay soo rarteen waa wixii yuhuudda ay aaminsanaayeen markay gaaladu ay u yimaadeen ay dhaheen nabi ilaahi maxamedow sif lana rabbak wa rabbiga no sifee no macne qul huwa allahu ahad soo degtay fiiri ilaah xaq joogo ilaah lugu leh ilaah gacmo leh ilaah saasa midna lama dhin suuradaas quruxda badan oo macaan ayaa soo degtay ilaahay subhanahu wa ta'ala nimankan waxaan oo qashinka ay wada wataan marka insha Allah wadi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh